Asalaamu calaykum kusoo dhawaada janaalkeena Somali Movie Recap haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar adigoo mahadsan like na saar maanta waxaan ka hadli doonaa filim Kuuriyaan ah oo lagu magacaabo Bad Huntress wuxuu ku saabsan yahay filimkan magaalo burburtay kadib markuu ka dhacay dhul gariir xooggan magaaladani waxaa kasoo haray meelo yaryar oo dad ay joogaan inta kale waa ay baaba'day dhismihiina way burbureen sidoo kale dadka magaaladan waxay ku nool yihiin ugaarsi sidaad u jeedaan hadda waxaana ka mid ah ninkan ugaarsada ah wuxuu soo ugaarsaday naxaas weyn si uu maanta dadka magaalada uga iibiyo sidoo kale biyaha magaalada sida lagu helo aad ayay u adag tahay oo dhalo yar oo biyo ah ayaa waxaa loo galayaa feel muddo saacado qaadanaya dadka magaaladan ma haystaan wax lacag ah sidaas darteed badeecadaha ay haystaan ayay ku bedeshtaan waxa ay cunaan sidoo kale halkan waxaa isugu yimid dad fara badan oo raba inay ka qaataan hilibkaas qof walbana wuxuu keenayaa badeeco si uu ugu bedeshto wax uu cuno ninkan waxaa lagu magacaabaa Namsam waana ugaarsadaha ugu weyn tuuladan waana askari hore gabadhan iyo iyadeedna waxay ka mid yihiin dadka meeshan usoo doontay adeega balse ninkan aad ay isu yaqaanaan haddana waxay guddoonsiinayaan sawir gacmeed aad u qurux badan maxaa yeelay gabadha waa artisto oo gacanta wax ku sawira sawirka ayay siinaysaa wiilkanna waa Naam saaxiibkiis isigana wuxuu danaynayaa gabadhaas inkasta uusan weli wax u sheegin kadib waxaa magaalada soo galay burcad wata sawir ayagoo dadka tuulada ku nool marba mid qashqashaaday haddana waxay arkeen gabadhan iyo hooyadeed ayagoo raba inay wadaan waxaa la dagaalay wiilkii kadibna waa ay ku goobteen waa ayna garaaceen wiilkii balse waxaa soo dhex galay Namsam isagoona garaacay dhammaan tuugadii wiilkiina ka badbaadiyey wuxuuna weydiiyey tuugada halka ay ka yimaadeen iyo sababtay halkan u yimaadeen intaba kadibna waa isaga tageen meeshii oo waa ay ka carareen dib dambana maysan usoo laabanin kadib Naam wuu iska soo laabtay si uu gurigiisa u socdo isigii iyo yarkii waxay arkeen dadka cusub tuulada dadkan waa dad soo booqday tuulada waxayna sheegeen inay yihiin dhakhaatiir ka yimid meel ka baxsan tuuladan yar ayagoo dadku sheegay inay kaxaynayaan geynayaanna meel biyo nadiif iyo cunto intaba leh weliba waxay u sheegeen inay meeshaas tahay meel ammaan oo nabadgelyo ah waxayna rabaan inay kaxaystaan dadka meesha joogo qaar ka mid ah ayagoo sheegay marba qayb inay wadanayaan halkaasna ay geynayaan haddana waxay ka dhadhacsiinayaan arrintaas gabadhii yaraad iyo iyadeedna waxaa loo sheegayaa in la kaxayn doono isla maantaba arrintaasna way ku farxayaan maxaa yeelay waxay doonayaan halkan inay isaga tagaan kadibna sawir xasuus ayay wiilkan u doonsiinaysaa weliba waa sawir ay iyada gacanteeda ku sawirtay kadibna way soo baxayaan habeennimadii waddada inta ay kusoo jiraan gabadhii marba waxa ay sawiraysaa waxayna marayaan meel bannaan ah waddada intay sii socdaan waxay isbaranayaan gabadhan oo isku meel ka imaadeen waa ayna sheekaysanayaan balse intii lasoo socday waxaa daal dareemaya iyada waxay dareemaysaa daal maana ay socon karto sidoo kale awoowahana asigana wuu daalayaa sidaas darteed waxaa loo sheegaya in la geyn doono meel daawo ah kadibna lasoo kaxayn doono oo laga daba keeni doono ayagana iska sii baxaan gabadhii sidaas ayaa lagu qancinayaa balse waa ay yaabaysaa waxay leedahay haddii ay gawaarid inta noo jireen maxay nooga reebeen hooyadeen kadib ayeeyadii iyo awoowihii waa lasoo kaxaynaya waxaana la keenaya meel duur ah halkaas ayaana lagu dilaya waxaana loo sheegayaa in kaliya loo baahan yahay dhalinyarada aan loo baahnayn dadka waaweyn Naam iyo saaxiibkiis oo ayaga meesha ugaarsi u soo aaday ayaa la kulmay arrintaas waxayna la dagaalayaan labadii nin dagaal adag ayaa dhex maraya maxaa yeelay raggan waa rag shaybaar soo maray oo kisbi lagu soo sameeyey waxyaabo tijaabo ah mana dhimanayaan oo wax walba lagu dhufto dib ayay usoo kacayaan ninkan aad ayuu u yaabaya maxaa yeelay weligiis muusan arkin sidaan waan adag dagaalka waxaa kusoo biiriyay gabadhan waxay la dagaalamaysaa raggaas ugu dambeyn waa ay ka guuleysanayaan waa ayna dilayaan kadib ayagoo raba inuu baxo ayaa wuxuu sheegayaa inaysan bixi karin ayaga oo meydadkan meesha yaala asturin
gabadha ayadeed ayay soo qaadeen wayna aasayaan. Kadibna ayay wareysanayaan gabadhii kale ee dagaalka kula jirtay. Iyadana waxay u sheegaysaa inay ka tirsaneyd askartii ciidankii hore. Sheekadeeda ayayna ugu sheekeynaysaa iyo waxa ay qaban jirtay, waxayna u sheegaysaa inay ka mid ahayd dadka baadigooba, dadka badbaaday. Haatan goobta waxaa soo gaaray diktoorkii waalnaa. Diktoorkanna wuxuu isku dayaa dadka hore inuu badbaadiyo gabadhiisa asigoo adeegsanaya kiimikooyin. Wuxuuna sameeyaa cilmi baarisyo aad u fara badan. Cilmi baarisidaas inta badan waa uu ku guuldareystay, maxaa yeelay wuxuu isku dardaray waa daawooyin iyo waxyaabo kale. Dabeedna dadka ayuu ku duraa si uu u soo saaro qof adag oo u adkeysan karo gaajada iyo cunno yarida intaba. Wuxuuna sheegay in daawooyinkiisa markuu isticmaalo dadka qaar ay awoodeen in muddo bilooyin ah ay noolaadaan ayagoo wax biyo ah aanan cabin. Wuxuuna sheegayaa inuu yahay mustaqbalka haatan kaliya u haray aadanaha. Arrintaas ayay ka hor imaanaysaa gabadhan, dabeedna way isaga soo cararaysaa. Haddana waxay qorsheynayaan sidii ay dib ugu laaban lahayn xaruntaas, ayna u soo badbaadin lahayn dadka halkaas joogo. Intaas kadib waxay hadda qorsheynayaan qaabkii ay ku bixi lahaayeen ayagoo raba inay tagaan. Hadda waxay soo gaareen dhismo aad u burbursan. Dhismahaasna waxaa ku nool burcadda dhammaan ayagoo halkan joogo. Ninkan waxaa la yidhahdaa Tiger, waana burcad hore ay isu yaqaaneen. Wuxuu sheegayaa haddii saaxiibkiis ninkan ay madoobaan oo ay ninkan dilaan in shaqaalihiisa qaar kamid uu siin doono. Kadibna dagaal ayaa halkaas ka dhacaya, waxayna garaacayaan dhammaan burcaddii. Intaas kadibna waxay soo qabanayaan ninkii burcadda u talinayay oo la oranayay Tiger, wayna garaacayaan ayagoo ka qaadanaya wixii, weydiinaya wax walba wax ku saabsan magaaladaas. Wuxuuna u sheegayaa magaalada inaysan hadda aadi karin, asigoo alaab wadin uusan dib ugu laaban karin, balse arrintaas way ka diidayaan. Waxayna ku qasbayaan inuu isla hadda qaado uuna geeyo. Intaas kadibna afartoodiiba way soo baxayaan oo waxay soo aadayaan dhankaas iyo halkii lagu hayay caruurta. Dhanka kale caruurtii dadkii la soo wadayba waa la keenay. Gabadhii waxaa la keenay guri qurux badan oo ayna la yaaban tahay, balse weli waxay xasuusanaysaa in ayadeed aysan soo gaarin. Waxayna weydiinaysaa askarigii meesha joogay, waxaana loo sheegay in dib ay u dhacday 2 maalin kadibna la keeni doono. Kadib waxaa imaanaya diktoorkii oo u khudbeynayaa ardayda dhanna. Waxaa la geenayaa dabaqa 8aad, halka waalidiintoodana loo kaxeynayo dhan kale meel ay ka shaqeeyaan, ayagoo loo sheegay in caruurtooda ay arki doonaan kaliya isbuucii 1 maalin. Sidaas ayayna ogolaanayaan. Kadib ardaydii waxaa loo soo kaxeynayaa fasal. Waxaa la keenayaa galaaska waxaa jooga arday fara badan oo ayaga kasoo horeeyey. Gabadhanna waxay fiirinaysaa ardayda, weliba waa ay shakinaysaa, maxaa yeelay waxay arkaysaa in mid walbo dhegta hoosteeda qalin loogu sameeyey. Arrintaas ayayna ka shakinaysaa. Sidaas ay tahayna meesha waxaa ku dhagan waa sawirka diktoorka. Macalimadana waxay u sharaxaysaa in bini'aadanka loo bedeli doono qaab kale, qaabkaas oo ah inuu u adkeysan karo biyo yarida iyo cunno yarida. Hadda waxaa loo keenayaa biyo, waxaana loo sheegayaa mid walbo ayaga kamid ah inuu biyahan cabo weliba uu dhammaysto. Balse gabadhan yar waa ay ka shakinaysaa biyaha oo ma cabayso, halka ayayna dhigaysaa iyadoo mar walba ku celcelinayso aaway ayeeyadeyda. Balse mar walba waxaa loo sheegaa in loo keeni doono. Dhan kale diktoorka wuxuu sii wadaa weli howshiisii isigoo sameeya cirbado fara badan. Askartiisana haddii uusan durin 24 saac kadib waxay isu bedelayaan bahalo, sidaas darteed waa inuu mar walba duraa. Habeennimadii ayay gabadheeda soo dhuumanaysaa iyadoo soo aadaysa dhankaas iyo dabaqa hoose si ay u ogaato wax meesha ka socdo. Waxay arkaysaa diktoorkii iyo askarigii meesha maamulaya intaba isla socdo. Way ka dhuumanaysaa dhanka iyo waxay sii aadaysaa shaybaarka diktoorka. Shaybaarka ay galaysaa waxayna arkaysaa gabadhii saaxiibadeed oo qalin lagu sameynayo iyo waalidiinteeda weliba meesha joogo. Qalinkii intuu socdana meeshaas ayay ka eegaysaa.
waxay arkaysaa in dictoorka qorshihiisa uu yahay qorshe aad u weyn, sidoo kalena yahay qorshe halis ah, balse gabadha waalidiinteeda ay arrinta soo fargelinayay. Gabadhoodiina halkaas ayay ku dhimanaysaa. Weliba waa uu badbaadin waaya dictoorka, intaas kadibna wuu caroonayaa. Wuxuuna leeyahay waxay khasaarisiin hooshii aan sanooyin soo wada. Halkaas ayuuna ku dilayaa gabadha aabaheed iyo hooyadeed intaba. Intaas kadibna gabadhii kale meesha ku dhuuminaysa ayuu arkaya, wuuna soo qabanayaa. Iyada ayuuna ku bedelayaa booskii gabadhii kale, balse wuxuu ilowsan yahay gabadhan inay tahay gabar aad u caqli badan, maxaa yeelay biyihii hore loo siimay aysan cabin. Asiga wuxuu maaya inay socsan tahay, balse gabadhani way soo jeedaa, wax walbana waa ay la socotaa. Waxayna u sheegaysaa in biyaha uu siiyey aysan cabin. Dhanka kale waxaa soo gaaray goobtii waa Naam iyo saaxiibadiisii. Goobtii ayay soo gaareen, waxaana lagu istaajiyey iridda baaritaanka. Waxaana loo sheegay in la gaaro waqtigii ay aan la gaarin waqtigii ay imaan lahaayeen, balse xoog ayay ku soo galayaan ayagoo dhammaan soo jiiraya askartii difaacaysa meesha, gudahana xoog ku soo galaya. Halkaasna waxaa ka dhacaya dagaal, ayagoo baabi'inaya dhammaan askartii meesha ilaalinaysay. Kadib weli waxaa sii socda waa dagaalkii, ayagoo raba inay dhammaan laayaan askartaan, balse askarta waa ayagana askar hubeysan, weliba aad u adag. Sidaas darteed si sahal ah kuma dhimanayaan. Dagaalkiina weli waa sii socdaa, ayagoo marba koox dilaya. Haddana waxay soo jabsadeen waa qayb ka mid ah xabsigii isbitaalkii, weliba waa qayb ay joogaan dad bahal isu bedelay. Kaas ayayna baabi'inayaan. Weli waxaa socda waa baabi'intii iyo weliba dagaalkii, ayagoo aan weli gaarin halkii ay rabeen. Si u gaaraan halkaasna waa inay horta marka hore baabi'iyaan wixii ka soo horeeya oo dhan. Wiilkii yaraa waa uu dagaalamayaa, Naamna sidoo kale qorigiisa shotgunka ayuu ku laanayaa. Dhakhtarkii ayaa la soo hadlay, wuxuuna u sheegay in ay isdhiibaan, halkan isaga tagaan, balse waa uu ka diidaya. Wuxuuna leeyahay halkan keligii kama tagayo, waa inaan badbaadiyaa dhammaan carruurtan aad meesha ku haysato. Hore ayuuna u soo galayaa asigoo baabi'inaya dhammaan askartii. Halkan ayay isu qaybinayaan. Wiilkii yaraa wuxuu aadayaa qaybta dhexe, halka Naamna uu aadayo xagga sare. Gabadhiina waxaa loo dirayaa qaybaha kale inay kasii dagaalanto iyadana. Kadibna markii uu kuwan soo laayo, wuxuu soo galayaa qaybtii shaqaalaha, wuxuuna u sheegayaa in ay u sheegaan halka lagu hayo gabadha. Markay u sheegaanna wuxuu leeyahay idinkan carruurtiina soo wata oo meesha kala baxa. Dabadeedna waa ay soo raacayaan. Halkaasna waxaa ka sii socda weli waa dagaalkii. Gabadhiina waxay ilaalinaysaa askartii tirada badneed, maadaama ay hore u ahayd askariyad. Haddana waxaa u soo baxay waa taliyaheedii hore oo ah nin aad iyo aad u dagaal badan. Dagaal culus ayaa dhex maraya, iyadoo dhaawacyo halis ah gaarsiinaysa, balse maadaama uu yahay askari lagu sameeyey, lagu tijaabiyey cilmi baarista, waxaas waxba kama dhimayaan. Gabadhii ayuuna dabaqa kasoo tuuraya. Dhanka kale wiilkii wuxuu soo galayaa qaybtii shaybaarka, wuxuuna macalimadda ku qabanayaa qoray. Wuxuuna leeyahay ii geey halkii ay joogto gabadha. Halkaas ayuuna usoo kaxaysanayaa. Ayagoo halkaas joogo ayaa waxaa soo kala dhex galaya askarigii. Naam wuxuu u sheegaa in askarigii howshiisa asiga uu daayo, howshiisana uu sii wato. Sidaas ayuu wiilkii ku baxayaa. Labadoodana ayaa isku soo haraya siis. Dhan kale dictoorkii wuxuu isduray daawadii. Weliba daawadan waa mid khaldan, maxaa yeelay ma ahan daawadii uu rajeynayay inay noqoto. Sidaas darteedna waxaa ku dhacaya igfashin u bedelaya asiga dhan bahal. Wiilkii ayaa goobta soo gaaraya, waxaana loo sheegay haddii qori uusan dhigin in gabadha la dilay. Sidaas ayuu qoriga ku dhigayaa. Dictoorkii wuxuu u sheegayaa gabadha in alaabihiisa loo diyaariyo, meeshan uu isaga baxaya. Wuxuuna qaadanayaa boorsadiisii suitcase-ka, waxaana ku jiro gabadhiisa oo qayb ka mid ah jirkeeda,
taas oo isku dayay inuu dib u soo celiyo. Dhanka kale Nam iyo askarigii dagaalkoodii weli waa u socdaa maxaa yeelay askarigan waa askari adag. Nam miyuu ku guuleysan doonaa inuu askarigan dilo? Ugu dambeyn waa uu dilay, sidaad u jeedaan madaxa ayuuna ka gubay, dabaqa ayuuna kasoo tuuray. Kadib ayuu usoo gudbay qaybtii kale ee shaybaarka. Doctorkii asigoo sii baxsanaya ayuu dhanka kale kasoo galay, waa uuna xabadeeyay. Dabadeedna doctorkii waa uu cararay. Saaxiibadiisna ma uusan badbaadin, taa beddelkeedana wuxuu usoo tuuray bambo si ay meesha ugu baaba'aan dhammaantood. Balse wiilkii ayaa badbaadiyay gabadhii, isagoo difaaca ka dhigtay miiskii ay ku jiiftay. Kadibna qarax aad u xooggan ayaa halkaasi ka dhacay. Qaraxa kadibna doctorkii wuxuu usoo daadegay dhanka iyo qaybta hoose isigoo raba inuu baxsado, balse waxaa arkay dadkii shacabka ahaa oo uu carruurtoodii baabi'iyay. Waa ayna garaaceen oo ay tumeen. Daawadii iyo wixii uu diyaarinayay oo dhanna waa ay ka daateen doctorka, balse ugu dambeyn wuxuu gacanta ku dhigay qori, isigoo baabi'iyay qof walba oo meesha ka ag dhawaa, weliba mid aanan ka reebin. Qorigii ayaa rasaastii ka dhamaatay. Dhanka kale gabadhii ayaa soo kacday, dhammaantoodna xagga hoose ayay usoo daadegeen. Doctorkiina wuxuu isku dayay inuu qori kala qabsado si uu dadka inta dhiman u laayo, balse waa la toogtay oo Nam ayaa toogtay. Dabadeedna waa uu yimid. Dadkii dhan waa isu soo baxeen, waxayna la yaaban yihiin waxa meesha ka dhacaya. Balse ugu dambeyn doctorkii Nam ayaa dilay, halkaas ayuuna filinkii kusoo gabagaboobay. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina.